نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد تمام مامولكا يوم معلمين أرداد سكول كهود ومعلم فهنريك السلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب إلى معضلة نوسوري قليل إن هالكان سوى ذي معنا كدب وحا معض بلارا نسكلا معمولكي معلمين جهدي دلال بدن كبحيي إن أفلدا ما أنت لقبته أردادي كالن كقادتي قبن قابسي يغن هذا نومادينيا انت وحي قدام بشرف اي تاي وانا ku faraxsanahay inaan idin la soo qayb galo afladani loogu dabaaldegaayo maalinta macalinka Soomaaliyeed runtii waa maalin qiimo badan waana maalin mudnaan leh waana maalin la xusaayo bulshada Soomaaliyeed ay dareemayso maanta oo kale inay qiimo gaar ah u leedahay maanta waxa loo joogaa in la bogaadiyo la dhiirigeliyo awaalkoodii loo muujiyo guud ahaan macallimiinta Soomaaliyeed maanta oo kale 11 November 1974 la aastay in maalintan ay noqoto maalin u gaar ah macallimiinta Soomaaliyeed awaalkoodana ay bulshada dareento qiimahooda la dareensiyo la xuso la qiimeeyo oo munaasabado meel kala duwan la soo imaado macallinka qiimo gaar u leeyahay wadnaan gaar u leeyahay wuxuu ka qayb qaadanayaa horumarkaada iyo asaaskaada nolosha iyo mustaqbalkaada wuxuu kaalin muqle uu ku leeyahay noloshaadii wuxuu ifinayaa wadadii aad u mari lahayd dunidan iyo horumarkaada marka qofkii intaas oo abaal ku galay wuxuu leeyahay maasanid in la yiraahdo marka guud ahaan macallimiinta Soomaaliyeed waxaan leenahay hambalyo maanta oo kale waa naga mudantiin in leedin maamuuso leedin qiimeeyo leedin ixtiraamo si gaar waxaan u hambalyeeynaya macallimiinta ugu macallin dadaal badan iyo juhdi badan ku bixinayo inay soo barbaariyaan ubadkan iyo bulshadan iyo shacabkani iyagana waxay leeyihiin mudnaan gaar ah macallimiinta ugu macallin waa taqaani duruufo kala duwan ay ku shaqeeyaan wax lacagna ma idinka qaataan oo dad intay isxilqaameen iyaga wax bartay kadibna waxbarashadoodii dadaalkii ay bixiyeen idinku bixinayo waa dadkii mudnaantaas lahaa weeyaan maanta oo kale in la maamuuso waa maalin ay mudan tahay weeyaan la qiimeeyo marka macallimiinta ugu macallin waxaan leenahay hambalyo intaan in ka badan aan mudan tihiin dad bulshada tusaale u ahaatiin leedin ogyahay oo bulshadana ay idin dareensantaa marka maanta mudnaanteeda ay leedahay macallinkan wuxuu noo leeyahay qiimo gaar ah bulsho markii la rabo in isbedel lagu sameeyo meesha loo marayo waa macallinka isbedel ku sameyn karo noloshiisna wax badan ka bedeli karo marka maanta maalintaas aan idinku hambalyeynaya waxaan leeyahay hambalyo intaa wixii ka dambeeyo maanta munaasabadan waxaa kaloo noo raacsan tahay inaan daahfurayno tartan aqooneedka 2025-2026 ee iskuulka Hudo Macallin oo ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed oo doosina taabagelin doono kulay kooxaha waa la dhisi doonaa oo maamulaha iyo macallimiinta dhisaayo tartankana bisha noo soo aadaan u bilaaban doonaa nidaamkii iyo systemkii maamulaha idin soo jeedin doona isaga ka arki doontaan tartankaas markuu qabsoomo aniga inaan taabagelino awaalmarinta iyo koobka iyo hadiyadaha la qaadanaya inaan bixino ururka doosi ahaan isaga mas'uuliyadiisa qaadanaya koobka la bixin doonaa waxaa yaal marka hal koob iyo 1 milyan kooxdii guuleysataan la siin doonaa ciidii guuleysato oo wax lagu tartamayo waa aqoontaas xoog iyo awoodna maahan qof walba wixii bartay unbaa meeshaas la imaan doontaa laguna tijaabin doonaa waxa barata faqaaraha la imaanaysaa 8 kooxood ugu yaraan la tartami doontaa 7 oo adiga 8 ka tahay haddii aad 7daas aad ka qaadid waa nin ragaata hadaad qaadi weysana waa faqaareynaysaa tartankaasi maalintu soo idlaado maalinta gabagabada finalka ay dheeli doonaan labada kooxood maalintaasaan imaan doonaa annagana maalintaasaan koobkii iyo lacagtii abaalmarintan aan bixin doonaa marka ardayda waxaan rajaynayaa inay isdiyaariyaan
daraasadii iskuulka waxaad ka qaadatay oo aad baratay baan lagu tartami doonaa. waxaasaan soo akhrinaysaa meesha waa taasaan sugu imaanaynaa. tartankaasaan idin sheegay waa ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed oo doosi taabagelin doono. koobkii iyo lacagta abaalmarinta iyaga bixinaayo oo ururka bixinaayo. idinkiina tartankii iyo wixii aad idinka doonayaa. muhiimadda tartanka laga leeyahay waxa weeyaan in casharadii la barto dib loo muraajaceeyo oo wax la akhriyo waa. ardada dhaxdoodan inay isbartaan ay is ogaadaan waay. casharadan ku celcelis uu noqdo oo qof walba oo dadaal badan uu ku bixiyo si waxbarashada loo xoojiyo. muhiimadda laga leeyahay tartanka oo dhan waxa weeyaan inaad waxbarashadiin iyo aqoontiina in la xoojiyo waay. si dadaal badan loo muujiyo wax markii lagu tartamo dadaal badan lagu bixinaa juhdi badan lagu bixiyaa wixii lagu celceliyeen waa la xifdiyaa. التكرار يكون الحمار عالما وعلمت dameerku wuxuu ku noqonayaa mid wax yaqaan. dameer haddii meeshaan alaab ku soo qaada maanta ama biyo soo qaado guri u geeyo berin wadadii la mariyo maalinta kale haddii biyaha loo soo saaro si u socdo gurigaas isaga tagay. ku noqnoqoshadaas wadadaas uu ku noqnoqday aan caalamka dhigtay qof wax yaqaan ka dhigtay. marka التكرار يكون الحمار عالما ku noqnoqoshada dameerku wuxuu ku noqonayaa mid aqoon-yahana. marka sidaas la mid ah in lagu celceliyo casharka la akhriyo dadaal badan lagu bixiyo la guuleysto. kooxooyinka wixii daraasad iskuulka ka soo qaadateen baan ku tartami doontaa. waxaan niraanaa laba dhagax hadii la isku dhufto mida jawaayo midka jawaay adiga ha noqonin midka wax jabinayo noqon. marka dadaal badan muuji casharada la soo akhriyo hala dadaalo si guud mar labaad mar saddeed macallimiinta wada macallin waxa leeyahay hambaliyo maalintiina idinku hambaliyeynayna aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.